waxaa jira mar kasta dadyow aaminsan in guur dhaqameedku uu aad u fiican yahay, halka dhinaca kale ay jiraan dadyow kale oo aaminsan in iscalmashada iyo jacaylku ay asaas u yihiin nolosha guurka. laakiin su'aashu waxa ay tahay kee ayaa fiican ama noqda guur leh xasilooni marka la isbarbar dhigo labada nooc ee guurka ah. ka hor inta aanan gudubgelin barnaamijkeena, like saar page-keena oo share garee fideoga. mahadsan. Dictor cilmi nafsiga ah oo u dhashay waddanka England oo lagu magacaabo Tony Like ayaa diraasad ku sheegay in guur dhaqameedku inta badan ku dhammaado fashil. sida diraasad la sameeyay lagu helay iyadoo sababta lagu sheegay in ay tahay isfaham la'aan ka dhaxaysa labada qof iyo in aysan wax badan is aqoonin ka hor inta aanay isguursan. halka dhanka kale uu sheegay in guurka jacaylku uu guulaysto inta ugu badan maadaama xiriirka caadifadda macnihiisu tahay in wax kasta oo nolosha ah isku duubni looga gudbo, taas oo ay ka helayaan xasilooni iyo deganaansho kana dhigaysa guurkooda mid guulaysta. sidoo kale Dictor Tony ayaa sheegay in dadka isjecel ay isugu samri karaan wax walba maadaama qofka ku jecel uu kugu jeclaanayo sida aad tahay dhinaca kasta, dhaqamadaada kuwa togan ama xataa kuwa taban. halka dhanka kale guur dhaqameedka uu labada qof mid waliba kan kale u jeedinayo ayado haddii uu khalad ku arko, taas oo sababaysa in xilli kasta uu burburi karo guurkaasi. si la mid ah in guur dhaqameedku inta ugu badan labada qof mid waliba leeyahay dana gaar ah sida lacag ama xataa mansab, taas oo labada qof mid waliba uu dantiisa gaar u wadanayo. halka ay diraasado kale sheegayaan in jacaylka caadifad keliya aanay dhisin qoys guulaysta, laakiin loo baahan yahay micno intaas ka weyn maadaama ay macquul tahay in jacaylkaasi uu soo dhammaado. ugu dambayn, labadan xaaladood aan isbarbar dhignay mid waliba ayaa ku fashilmi karaa nolosha guurka, waayo diraasaduhu inta badan waxay adeegsadaan waa tiro koob. tiradaas yarna tusaale uma noqon karto dadyowga adduunka oo dhan. haddaba fikir ahaantaada kee ayaa guulaysta, ma guurka jacaylka mise kan dhaqanka ee aanay labada qof hore isu aqoon? maxay kula tahay adiga? intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeena. waad ku mahadsan tahay daawashadaada.